السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله. gabadhii reer Masar ee dee Haajir ka soo raacday Nabi Ibraahim iyo Saara dhulka Masar in uu bandhigtay Saara inuu Ibraahim guursado ayaa dhashay. Haajir waxay dhashay wiil, Saarana Masiir ayaa qabtay. Ilaahay ayaa ka dhigay Masiirka Saara ay u qabtay Haajir markay dhashay midroga habu socodka sooyaalka. wiilka Haajir ee dhashay ayaa loo bixiyay Ismaaciil. dhalashada Ismaaciil ayaa noqotay mid u bilowda nolol cusub jasiirad dhammaystiran ee bannaan. Ilaahay wuxuu faray Nabi Ibraahim inuu la haajiro Ismaaciil iyo xaaskiisa Haajar dhul aan beer lahayn, ceel lahayn, dad lahayn, deegaan lahayn. Nabi Ibraahim wuxuu u gaansamay amarka Alle. wuxuu diyaariyay sahaydu ugu talgalay Haajar iyo wiilkeeda Ismaaciil ay ka mid tahay timir iyo biyo. kadibna waxay aadeen dhanka dhulka la faray. markay yimaadeen dhulkii la faray ee ah Makka ayaa Haajar waxay fariisatay geed hoostiisa ugu dhowaaday cidla ah. Nabi Ibraahim uu dhowr jeediyay oo sii dhaqaaqay isagoo u sii socda dhanka Shaam. Haajar ayaa soo daba gashay waxayna weydiisay Nabi Ibraahim sababta uu ugu tagay keligooda dhulkan cidlada ah. Nabi Ibraahim kama uusan jawaabin su'aashii Haajar. waxay ku celcelisay 3 jeer. deedna waxay tiri ma Ilaahay ayaa ku faray sidan? Nabi Ibraahim ayaa ku yiri haa. Haajar markaa ayay tiri markana ma dayacayo Ilaahay. waxayna ku laabatay geedkii. waxay bilowday inay nuujiso ayna quudiso wiilkeeda Ismaaciil sahaydu ugu tagay Nabi Ibraahim. Nabi Ibraahim markuu ka fogaaday oo ka qarsamay Haajar iyo wiilkeeda Ismaaciil ayuu u jeestay dhanka qiblada. Ilaahay ayuuna baryay inuu u sahlo dad weheliyaan. wuxuuna yiri Ilaahayow waxaan ugu tagay caruurtayda dhul aan beer lahayn, aan dad joogin, una dhow beedkaada xaramka. Rabbiyow ka yeel kuwa salaada ooga, qulubta dadkana ka dhig mid u jeeda dhanka beedkaasi. waxaan ku arsuqdaa miro waxa xaqiiqo ah inay mahadnaqaan. muddo kadib Haajar waxaa ka dhammaaday sahayadii Nabi Ibraahim kaga tagay. waxaa gaajooday wiilkeeda wayna u cabsatay. kadib waxay dhigtay wiilkeeda Ismaaciil geedka hoostiisa waxayna u ruclaysay dhanka buurta Safa. markay fuushay oogada buurta Safa ayay ka barbaartay geesaha iyo dhinacyada gurmad waxna maysan arag. kadib way ka soo degtay waxay u ruclaysay dhanka buurta Marwa. sidoo kale oogadeeda ayay fuushay waxayna barbaartay dhinacyada waxna maysan arag sidoo kale. sidaa ayay samaysay dhowr jeer ilaa ay maqasho markii dambe shanqar ka soo yeerta dhanka geedka. geedkii uu yaalay wiilkeeda Ismaaciil wayna u soo laabatay. waxayse aragtay biyo ka soo burqanaya wiilka agtiisa. waxay bilowday inay gacanta ku celiso biyaha ayna ka darsato kana buuxsato weelkeeda. waxa u soo muuqday malag kuna yiri ha ka cabsan in lagu dayaco. wiilkaani halkan ayuu ka dhisi doonaa beedka Alle. Haajar Ilaahay ayaa kaga qaaday murugteeda biyaha Zamzam iyo bishaarada wiilkeeda Ismaaciil. muddo kadib waxa uu yimid Haajar iyo wiilkeeda Ismaaciil socoto ka tirsan qabiilka Jurham ee ka soo haajireen dhanka Yemen. waxayna ka dalbadeen Haajar inay la degaan wayna ka aqbashay ileen wehel way u baahneed. sidaa ay waxay ku noqdeen hal bulsho oo isku xiran isna dhaafsada biyaha Zamzam iyo cuntada. deegaanka cidlada ah uu Nabi Ibraahim kaga tagay Haajar iyo wiilkiisa Ismaaciil ayaa wuxuu isku bedelay dhul ka bilaabatay nolol cusub. Makka ayaa noqotay deegaan cusub. Ismaaciil wuxuu la soo barbaaray qabiilka Jurham wuxuuna ka bartay luqadda Carabiga. sidaas ayuu wuxuu ku noqday Carabta. ileen markaad dad muddo la noolaato waxay ku arkayaan inaad ka mid tahay iyaga. ileen ma jirin cunsuriyad iyo waxyaalahaas oo kale sida haddaba dhacdo. Nabi Ibraahim ayaa asagana soo booqan jiray qoyskiisa Makka joogo Haajar iyo wiilkeeda Ismaaciil. deedna wuxuu ku noqonayay qoyskiisa Shaam jooga Saara. sidaa ay xaaladda ahayd ilaa uu ka weynaaday Ismaaciil uu ka noqdo wiil wax fahmaya, hadlaya, garanaya waxyaalaha ku hareeraysan kuna dhegan xariga Alle. maalin maalmaha ka mid ayaa sida caadada ahayd soo booqday Nabi Ibraahim qoyskiisa Haajar iyo Ismaaciil ee ku sugan magaalada Makka. Nabi Ibraahim ayaa ku yiri wiilkiisa Ismaaciil Ismaaciilow waxaan kuugu arkay riyada anuu ku gowracayo ee sidee u aragtaa? Ismaaciil ayaa ku yiri samee aaba waxa lagu faray. waxaad helaysaa Ilaahay hadduu yiraahdo inaan ka mid noqdo kuwa gegsada. Nabi Ismaaciil wuxuu ogaa in riyada nebiyada ay ku riyoodaan hurdada inay tahay mid dhab ah oo xagga Alle ka timid. ileen dadka caadiga muuminiinta ah ayaa riyadooda ah mid wax bishaaraysa aan waxyi ahayn. Ismaaciil sidaas ayuu u hoggaansamay riyadii Nabi Ibraahim. Nabi Ibraahim ayaa mindi soo qaatay. Ismaaciilna wuu isdiyaariyey dhabanka iyo dhulka dhigay. markuu doonay Nabi Ibraahim inuu gowraco ayaa Ilaahay u dhawaaqay kuna yiri Ibraahiimow waad rumaysay riyadaada waxaana lagu furtay wan weyn. sidaas ayuu Ismaaciil ku badbaaday kuna xaqiijiyey riyadii Nabi Ibraahim. Ilaahayna wuu imtixaana addoommadiisa qofkii ku raali noqda ee gegsada waxaa loo furayaa faraj iyo abaalmarin adduun iyo aakhiro. wa sallallahu wasallam calaa nabiyina Muhammad wassalaamu calaykum.